بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين بداوضيال كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay Ethiopia amxaaradii ayaa la sheegay inay bilowday inay qaxdo ugu yaraan 3,000 oo qof ayaa ka gudbay xuduud ay la wadaagaan Suudaan iyo sidoo kale Ethiopia sida ay ku waramayso hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxaynu eegi doonaa oo kale wararkii ugu dambeeyay ee jiida dagaalka isla markaasina la isku farasaaray iyo xogihii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya sidoo kale qodobada kale muhiimka ah idin hayna waxa kamid ah jabhadda Oromada oo guulo sheegatay isla markaasina kumanaan ciidamadeeda tababaro soo xidhay muuqaalo iyo sawirro ayaan idin haynaa ciidamada jabhadaasi oo lafta oo ku safraya basaska dadweynaha iyo ugu dambeyntii dibadbaxyo ballaaran oo laga soo horjeedo qoomiyadaasi caanfarta oo saaka ka socda caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal ee ku soo dhawaada wararkeena oo faahfaahsan aan ku bilownay dagaal culus ayaa wali ka soconaya deegaanka Kobe iyo sidoo kale hareerihiisa iyadoo la sheegay in dhinacyadu aysan waxba isula harin jirirahaasi iyadoo labada dhinacna ay wali ismari la yihiin isla markaasina haatan uu socdo dagaalkii ugu cusla xogaga TPLF ayaa u muuqda kuwa la hakiyay haatan isla markaasina dhaafila difaaciyada adag ee amxaaradu ay ka sameysteen buuraleyda deegaankaasi lagu magacaabo Kobe oo ah meeshii ugu dambeysay oo ay ka qabsadeen xogaga TPLF amxaarada laakiin buuraha ku hareeraysan ay difaaciyada ka qodeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ethiopia ayaa iyaguna duqeymo ba'an ka geysanaya deegaanadaasi lagu dirirayo waana sababta rasmiga ah baa la leeyahay ee joojisay duulaankii xawaaraha sare ku socday ee xogaga TPLF sidoo kale ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka amxaarada oo iskaashanaya ayaa la sheegaya in ay heleen gurmadyo baaxad leh oo uga imanaya dhanka deegaanka amxaarada gudihiisa waxaana la sheegay in ay gurmad xoog la heleen dagaalada socday tan iyo shalay lagama hayo xogo faahfaahsan iyo sida uu xaalku haatan yahay laakiin kooxaha dagaalamaya ayaa gebi ahaanba joojiyay wararkii laga heli jiray furimaha hore ee dagaalka waxayna u muuqdaan mid haatan ciidiyaha lagu dagaalamayo oo ay dhaaftay caycay iyo aan afka laga hadlo waxaana la sheegay in labada dhinacba ay dagaal xoogan ay ku jiraan isla markaasina ay joojiyeen inay warbaahinta propaganda u qaybiyaan hadalkii ugu dambeeyay ee laga hayo afayeenka kooxdaasi TPLF Getachew Reda oo qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu sheegay in madaxweynaha deegaankaasi amxaarada Agageno Tashaga uusan isdili doonin xitaa haddii Raaya Walkeita iyo sidoo kale magaalada Gondar la qabsado horaan ayuu si public ah u ballan qaaday ayuu yiri madaxweynaha deegaankaasi amxaaradu Agageno Tashaga in uu isdili doono haddii laga qabsado ciidamadiisa deegaanka lagu magacaabo Raaya waana la qabsaday buu yiri ismana dilin oo wali uu soo taagan yahay Agageno Tashaga dhanka kalena waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay jiha kasta kaga socdaan xitaa roobku uusan joojin karin waxa uuna yiri waa in kooxda Abiy iyo sidoo kale madaxweynaha amxaarada loo sheegay inay yihiin kansar u baahan in laga jaro guud ahaanba waxa loogu yeero Ethiopia hadalkii Abiy ee ahaa waa kansar kooxda TPLF ayuu daba socdaa afayeenka kooxdaasi TPLF Getachew Reda ugu dambeyntiina waxa uu yiri qayb kama noqon karaan xal siyaasadeed oo Ethiopia loo raadiyo qoorta ayaana soo qabanayna iyaga iyo midkii maalgeliyay oo uu la jeedo afwarqiga ahaa dalkaasi Eritrea wuxuuna yiri cidna nama hor istaagi karto afayeenka kooxdaasi TPLF waana hadalkii ugu dambeeyay ee uu soo dhigo baraha bulshada xogaga Tigreeg ayaa sheegayay maalmo ka hor inay qabsadeen magaalada Kobe oo ay maamulka amxaaradu beeninayeen iyadoo oo sawiradii ay Tigreegu soo bandhigeen ay xogaga amxaaradu ku sheegeen kuwa been abuur oo Photoshop haddana Tigreeg ayaa haatan muuqaalo ka soo duubay magaaladaasi Kobe
iyadoo wariyuhu uu si toos ah uga soo waramayo afaafka hore ee magaaladaasi laga galo magaalada Kobe sida muuqaalka haatanba idinka muuqanaysa. haddii aynu eegno dhankaas iyo deegaanka Caanfartana waxaa weli gobolkaasi Caanfarta ka soo firxanaya ciidanka Itoobiya iyadoo maalinnimadii shalay ahayd la soo bandhigay muuqaalo askarta ciidanka gaarka ah ee deegaankaasi Oromada oo dib ugu noqonaya deegaankooda kuwaasi oo dad Caanfarihi ay weydiinayaan sababaha ay dagaalka uga soo baxeen iyo halka ay geeyeen hubkii ay dawladdu soo siisay ee la yiri ku dagaalgala. waxaa la arkayaa muuqaaladaasina ka muuqanaya ciidamo fara badan oo saaran baabuurta xamuulka oo ka soo jeeda deegaankaasi Oromada kuwaasi oo dib ugu soo laabanaya deegaankooda. ciidankani Oromada ayaa sida shaashada idinka muuqanaysaba saaran baabuurta xamuulka markii horena lagu soo daabulay. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaa bilowday qaxa qowmiyadda Amxaarada ugu yaraan 3,000 oo qof ayaa la sheegay inay ka tallaabeen xuduudda ay Suudaan iyo Itoobiya wadaagaan. wakaalada wararka ee AFP ayaa waxa ay qoraysay maalinnimadii shalay ahayd oo isniin ahayd in 3,000 oo qaxooti Amxaari ay ka gudbeen xadka Suudaan isla markaasina ay magangeliyo weydiisteen dawladda Suudaan. hay'adda qaxootiga adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay UNHCR ayaa diiwaan gelisay 3,000 oo qof oo ka soo qaxay deegaankaasi Amxaarada. waa markii ugu horeysay ee la soo tabinayo in deegaanka Amxaarada uu ka bilowday qax baahsan oo la mida kii Tigreega ka dhacay kal hore. Amxaarada ayaa sababta la xiriidha dagaalka ka socda Itoobiya gaar ahaan deegaanka Amxaarada ku sheegay inay u qaxayaan. dawladda Suudaan ayaana qiyaasaysa in ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti Amxaara ay soo dhaweyn doonaan bilaha iyo toddobaadada inagu soo fudle. haddii aynu eegno dhanka iyo deegaanka Oromadana jabhadda Oromada ee ka dagaalanta deegaankaasi Oromada ee magaceedana loo soo gaabiyo Ola ayaa soo bandhigtay ciidamo fara badan oo kumanaan gaaraya kuwaasi oo ay u soo xidheen tababar military kuwaasi oo dhamaystay tababarkaasi oo muddo u soconayay. jabhadda ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ay la galeen ciidamada dawladda Itoobiya iyo sidoo kale deegaankaasi ee Oromada waxaana ay sheegeen inay qabsadeen magaalooyin dhowra iyaga oo soo bandhigay dagaalyahano ka tirsan jabhaddaasi Ola sida shaashada idinka muuqanaysaba oo ku safraya basaska caadiga ee dadweynaha iyagoo aan wax cabsi ah qabin. waxayna sheegeen in magaalooyin dhowr ah ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku hayntooda. haddii aynu eegno dhanka iyo Jigjigana dibadbaxyo ballaaran ayaa saaka ka socda magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida kuwaasi oo looga soo horjeedo xasuuqa bahalnimada ee Caanfartu ay ka wado degmada Garbaciise ee galbeedka gobolkaasi City ee dowlad deegaanka Soomaalida. dibadbaxyadani oo dad badani ay ka soo qayb galeen ayaa waxa ay haatan si toos ah uga socdaan caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyadoo sidoo kalena dibadbaxyadani lagu taageerayo ciidanka hageesiyada liyu booliiska ee dharbaaxada lama ilaawaanka ku dhuftay maalinnimadii shalay ahayd maleeshiyaanka ilka fiiqanta Caanfarta ee duulaamada isdaba jooga ku hayay deegaanadaasi Garbaciise iyo guud ahaanba galbeedka gobolkaasi City. dibadbaxyadani oo ka socda meelo kala duwan oo deegaanka Soomaalida ayaa looga soo horjeedaa xasuuqyada ay Caanfartu ka wado gobolkaasi isla markaasina lagu taageerayo tallaabada military ama howlgalka military ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka qaaday maleeshiyaadka Caanfarta oo maalinnimadii shalay ahayd laga cayriyay degmada Garbaciise oo ay qabsadeen 24 bishan aynu ku jiro.
هالجرينا دفاعنا هجروا عليه هجروا دفاعنا عيد يلا guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal wararkeenii ku mahadsan idin la socodkiina